gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha cusub ee dowladda Itoobiya oo fadhiya Soomaaliya danjire Mukhtaar Maxamed Waare. Gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe iyo danjiraha dowladda Itoobiya ee Soomaaliya oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood ayaa danjiraha dowladda Itoobiya ee Soomaaliya waxa uu gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka uu soo gaarsiiyay dhambaal uu uga siday gudoomiyaha baarlamaanka dalka Itoobiya waxaana uu sheegay in dowladda Itoobiya ay diyaar u tahay adkeynta xiriirka labada dal. Dhinaca kale, safiirka oo gudoomiyaha golaha shacabka uga mahadceliyay qaabilaadiisa ayaa waxa uu xusay in labada dal ay ka wada shaqeynayaan dhinacyada horumarka, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo la dagaalanka kooxaha khawaarijta. Ugu dambeyn, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa safiirka uga mahadceliyay booqashadiisa waxaana dhanka kale sheegay in golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya uu xoojinayo xiriirka baarlamaanada labada wadan. Ibraahim Gudle Isxaaq, raadiyo telefishinka qaranka, xarunta guddoonka iyo guddiyada Villa Hargeysa, Muqdisho.